السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال meel kas dunida ka joogtaan ku soo wada maanta iyo wararka ugu waaweyn aflaamta indiga channelkeena waxaanu soo qaadan doonaa hadaba maanta iyo akhbaaraadka ugu muhiimsan ee aflaamta indiga oo qayb ka yahay still wali waxa uu wada record filimkii Hrithik Roshan iyo Tiger Shroff ee War oo hadana record kale sii dhigay ayaanu soo qaadan doonaa iyo atrishada caanka ee Aishwarya Rai oo dabaaldegeeda si qaas ah loo diyaarinayo waana soo qaadan doonaa maanta sidoo kale waxyaabaha iyuna ay ka mid yihiin filimka Bigil ee uu waday actorka Vijay oo durba taariikh aan inaba nucaadayn dhigay isagoo waliba filimka Akshay Kumar ee House of Four kula tartamaya shineemooyinka Hindiya waliba waxaan soo qaadan doonaa sidoo kale qodobo ay qayb ka yihiin Akshay Kumar oo garaacaya filmadiisii hore ee Holiday iyo Jolly LLB si uu noqdo filimka sideedaad House of Four filmada dhaqaalaha ugu badan u soo xareeyay actorka caanka Akshay iyo qodobo kale ayaanu soo qaadan doonaa maanta oo ku saabsan wararka Hindiga wararka channel ka soo saaxiib noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay aflaamta Hindiga okay waa yahay bal wararkii baanu soo qaadan doonaa iyo maanta waxyaabaha ka cusub Hindiya daryahan Bollywoodka iyo waxa aad loogu hadal hayaa filimada imaanaya filimada soo baxaya dhaqaalaha ay soo xareynayaan ayaa aad iyo aad la isugu hayaayo waxaan hadaba ku hormareynaa filmadii ugu dambeeyay soo baxay filimkii Vijay ee Bigil iyo filimkii kale Akshay Kumar ee isaguna waday House of Four oo iyuu dhaqaale badan soo xareynaya haddaan ku hormarno filimkii sportiga ka hadlayay ee Vijay uu waday waa ninka aad taqaanaan ee filimada tamilka khatarta ku ah waxa uu filimkiisa hadda ugu dambeeyay ee Vijay uu keenay ee Bigil uu noqday hadaba durba mid kamid ah filimada taariikhda tamilka hidkii ugu fiicnaa noqday ee dhaqaalaha ugu badan ku soo xareeyay maalmo yar oo kooban Vijay filimkiisu 200 oo karoor ka badan buu gaaray waliba xitaa Vijay filimkiisu wuxuu gaaray in shineemooyinka uu ku caariyay yani dhanka box office-ka uu kula tartamo filimka House of Four ee isugu tageen actor caana sida Akshay Kumar iyo Baby Doll iyo Ritesh Demoqshi ayuu la tartamay ninka kanu dhaqaalaha kula dagaalamay hadda waxa lagu leeyahay 200 oo karoor ayuu gaaray filimka talabaad Vijay ninka la yiraahdo ee Bigil waana film action ah sporti ka hadlaya dagaalkii waa socda jugtii iyo jangalaftii iyo wixii aad ku jeclaan jirtay taamilka waa ku jira filimku waa action haddana waa sporti taariikh drama badan oo Hindiya kubadda cagtu waa looga hadlayaa marka filimkan 5 maalmood waxa lagu leeyahay waxa uu filimka Bigil durba u cadeystay inuu yahay mid kamid ah filmadii tamilka ugu all time taariikhda ya kuwa hidka si weyn u noqday bay u cadeynayaayo dhaqaalaha filimka uu soo xareeyay sida dad yoogii daawada filimka ay aad iyo aad ugu kululaayeen filimka daawashadiisa filimkan waxa actorkan kula jiray actorada caanka Niyantaro waa mid kamid ah atrishooyinka laga daba dhacay ee tamilka iyo actorka caanka Tiger Shroff ayaa filimkan ku jiray marka filimkan waa action iyo sporti banoonigi baa la ciyaaraya feerkiina waa daba socda marka Vijay filimadiisa la Vijay ninkan weyn waa ninkan filimada tamilka ragga waxa weeyaan loo istaagayo waa macnaha ninkan nin caadi ma ahan Vijay filimadiisa waa absolutely film fantastic weeyaan oo marka filimkiisa ugu dambeeyay Bigil dhaqaale badan buu soo xareynayay waa filmadii soo baxay maalmihii dhawaay la soo dhaafay hadda adu 5 ilaa 6 maalmood ayuu dhaqaale badan soo xareynaya haddaan u eegno xataa filimka Akshay Kumar bay ku tartameen saaxada filimka Akshay Kumar ee hadda uu isaguna keenay ee House of Four oo Akshay Kumar uu madaxa xirtay bay xataa isku qabteen baa lagu leeyahay box office-ka inkastoo filimka Vijay uu Bigil hogaanka hayay dhanka dhaqaalaha haddana mar dambe Akshay Kumar filimkiisa House of Four ayaa mar kale hogaan kala wareegay baa lagu leeyahay markii koowaad Vijay filimkiisa wuxuu ku cadareeyay xataa uu ka yaabsaday Akshay Kumar baa laga yaabsaday oo Akshay Kumar dhaqaalaha asaga hogaaminay filimkiisa hogaaminay dhaqaalaha ugu badan ee la soo xareeyay filmadii ugu dambeeyay soo baxay dhawaan Akshay Kumar baa hogaaminay Akshay baa hogaaminay Vijay baa soo galay Vijay baa hogaan ku qabtay filimkiisa Bigil kadibna hadda Akshay Kumar baa haysta lagu leeyahay ugu dambeyntii House of Four ayaa ka starmaray baa lagu leeyahay filimka Bigil ee sporti ka hadlay ee uu keenay actorka caanka ah Vijay filimkan sidoo kale waxa filimkan intaanu soo bixin Shahrukh Khan baa kamid ah actorada nasiibku aan u rajay actorkan Vijay Shahrukh Khan asagoo film sport hadda ka hor keenayo tababarkii qaranka Hindiya ma ku matalay maadaama film sport ka hadlayo waxaan u rajaynayaa hambalay saaxiibkay Vijay nasiib aan u rajaynayaa xataa actor caan oo filimka daawada uu kamid yahay actor film samayaha weyn ee Karan Johar ciidamada uu ku turay filimka wuxuu yiri wallahi waxaan u ahayn film caadi ma ahayn buu yiri action sport uu filimka hadlay marka waka filimkii Bigil dhaqaale badan soo xaray Akshay Kumar marka hore hogaaminay tartanka ka hogaaminay balse Akshay Kumar filimkiisa dib ugu soo laabtay haddaan u eegno dhanka filimka Akshay Kumar House of Four hadda wuxuu socdaa inuu noqdo
filimkii sideedaad ee taariikhda lacagaha ugu badan soo xareeyay uu keenay actarka caanka Akshay Kumar ayaa filimkanu wuxuu ku garaacay Hustle 4 filmadiisii hore isagu hore u keenay ee Holiday iyo Jolie LLB ay ku garaacayaan lagu leeyahay waxaana Hustle 4 hadda qarka u saarayay lagu leeyahay inuu noqdo filimkii sideedaad ee taariikhda Akshay Kumar uu keenay ee dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay waxaan ka hadlaynaa filimada Akshay Kumar ee dhaqaalaha ay soo xareeyeen filimka hadda uu Hustle 4 u keenay wuxuu ku dhow yahay filmadii Akshay Kumar hore u keenay inuu soo garaaco oo kaalmaha fiican yimaado oo noqdo filimka sideedaad ee dhaqaalaha ugu badan Akshay Kumar uu keenay soo xareeyay filimka dhaqaalaha ugu badan Akshay Kumar soo xareeyay waa filimka Mission Mangal oo 200 oo koror soo xareeyay waa filim mid kamid ah filmadii ugu dambeeyay uu keenay weeyaan action inama caadi ahayn maanu hayn sidoo kale waxa filimka labaad ugu dhaqaalaha badan Akshay Kumar uu yahay Kasari oo soo xareeyay 104 halka waxa ku xiga filimka Toilet kii musqulaha uu isaguna soo xareeyay 134 Rowdy Ratore filimkii yaa qatarta ahaayee labada kolba ku jiray yaa aadka u ciyaaray 131 karoor isna soo xareeyay Arleft ayaa isna ku sixiga oo soo xareeyay 129 karoor filimkii Rustam oo xitaa abaalmarinta lagu siiyay 127.4 iyo 2 karoor buu soo xareeyay Jolie LBB ayaa isna soo xareeyay 117 karoor Houseful 2 ayaa soo xareeyay 114 haddaba Holiday ayaa soo xareeyay iyo Holiday filimkii Soldier is Never Off Duty filimkii askariga yani waajibkiisa marna ma dayacayo wahaayay dagaalamay goofinta xataa markuu qayb ku lahaa ay isna 112 karoor soo xareeyay Hustle 4 isna wuxuu soo xareeyay hadda 111.82 karoor hadda waxa uu leeyahay marka Hustle 4 wuxuu ku dhow yahay inuu garaaco filmadii Akshay Kumar hore u keenay ee ahaa Holiday iyo filimka Jolie LBB waxaanu filimkan ku dhow yahay inuu noqdo filimka sideedaad ee taariikhda Akshay Kumar uu keenay ee dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay buu hadda ku dhow yahay wararka lagu muhiimsan iyo aflaamtii diga toddobaadkan iyana waxa kamid ah atrishada caanka ah ee Aishwarya Rai oo uu qabo actarka weyn Abhishek Bachchan ayaa isu diyaarinaysa maalinta dhalashadeeda waxayna warar ku leeyihiin dhalashada atrishada waxa lagu sameyn doonaa Italia waxaana halka wada tagi doona leeyahay ninkeeda Abhishek iyadoo Aishwarya wiicaru gabadhoodu Aradia sanad kasta wuxuu u dabaaldegtaa dhalashada atrishada tan aad bay ugu dabaaldegtaayo sanadkan dhalashada atrishada tan waxa loogu dabaaldagayaa lagu leeyahay Italia waxaanay atrishadu noqon doontaa lagu leeyahay 45 jir bay noqon doontaa Aishwarya Rai oo mar noqotay gabadha ugu quruxda badan dunida oo dhan ayaa hadda ku dhow in ay noqoto 45 jiro waxaanay u buuxsamaysaa dhalashada ka 1 November haddaba atrishada caanka ee lagu magacaabo Aishwarya Rai ayaa 1 November u dabaaldegi doonta dhalashadeeda 45aad waxaanay noqon doontaa atrisha 40 jira waxaana xafladeedu la sheegay in ay ku dhigan doonto Italia halkaas oo ay odaygeeda waa ninka qabe iyo waliba canugteeda ee Aradia ay isku wada raaci doonaan baa leeyahay marka Aishwarya waxay noqonaysaa 45 jir marka la gaaro November 1 marka waa gabar aan inaba nucaad ahayn Aishwarya Rai waxaanay hore u la soo xisaabo la soo sameeyo yani jacayl la soo jishay toorayaal waaweyn oo yani soo shukansaday Salman Khan baa kamid ah Vivek Oberoi baa kamid ahayo Maalud ka carisna ku tilmaamay iyadu inay tahay gabar nin kasta ku ordaysa markii isagu soo shukansaday kadib Salman Khan si xageeda martay kadibna Abhishek uu guursaday marka waxa uu leeyahay Salman Khan baa ku soo maray iyadu aad markii hore soo shukansaday kadib Vivek bay isfahmeen kadibna waxaba aroosay actarka weyn ee lagu magacaabo Abhishek Bachchan markii badweyd marka Vivek wuxuu lahaa waa Aishwarya wuxuu ka dhigay qof nin walba la socod ah oo aanu qalbi dhab lahayn oo nin kastaba jacayl la bilaabaysa على أي حال أتريشة وين وحين نقنيسا أفرتن إيا شنشر بين نقنيسا يو حفلة دي تاري بالغولي جايا وقدام بينتي هريتك روشن يا تايجر شري فيلم كودي وار وفيلم إن بانو عادي هينو وفيلم كم مركز ريكور عصبو دقيا ريكور بوجبينيا ريكور بوجبينيا وريكور بريكر ويا فيلم كايو وها فيلم كاسينو نقضي فيلم كي سدح بخل أو قرار أو دقالك السحرية هندي يدني ذا أردن وحانو سيدا كون نقضي فيلم كدقالة وجوب بدن سحرية سنة كسجو أي حد نروحو نقضي فيلم كبور سمين تبيسا يا مليون دت أي كدا ودين يوتيوب كا waxaa la leeyahay filimka kan isagoo noqday filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay sanadkii Indiyoonan ayaa haddana waxa lagu leeyahay filimka kan marka YouTube-ka laga hadlo boorsameentidiisa dadku si waliba u daawadeen baa lagu leeyahay waxaana si aan caadi looga daawaday barta YouTube-ka oo 100 milyan oo daawasho ayuu helay baa lagu leeyahay boorsameentidii filimkan ka hor intaanu soo bixin ilaa hadda marka la fiiriyo 100 milyan buu ko filimku joogaa daawasho boorsameentidiisa basaas loogu wada dheeray daawashadiisa iska dhaafay
waxaana uu la mid noqday filimada Bahubali iyo Tox of Stan oo Amir Khan iyo Ali Dheer ay wadeen iyo Zero oo iyuna dhaqaale yani aad loogu daawaday YouTube-ka marka loo fiiriyo 100 milyan ee daawaday. haddaba rekoorka filimka boorsamintadiisa aad dadka u daawadeen waxa haysta 120 milyan يا وبقول يلا باتن دبع سديد بقول تضبط سجال مليون أو ضد بافرسدي وفيلم كزيرو دخلها بدن أن صحرين شاروخان وكعيوبي فيلم كساسو يتهاي وفيلم كتاريخ الهندي بورسمين تديسو ضد كأوجو بدن أي داودين وبقول يلا باتن مليون بعد داودي فيلم كلامات كوسي حاجة وبهوبالي أو داودين بقول يتمن مليون وحكوسي حاجة فيلم ك توك هوفندستان أو علي داريس أمير خان أيودين بقول يسديد مليون أي داودي وور هذا سنة واحد داودي بقول يكو مليون ayaa daawad lagu leeyahay waxa uu noqday marka film kale oo 100 milyan gaaray oo baraha bulshada si weyn looga daawaday gaar ahaan YouTube-ka boorsamintooyinka marka laga hadlayo marka ilaa hadda rekoorka zero baa haya Bahubali baa ku xiga Talk of Stan baa ku xiga War wuxuu noqday filmkii afraad ee boorsamintidiisa ama trailerkiisu looga la socdo si weyn ama looga daawado YouTube-ka inta aan gobogweynayna maanta qiyaaray akhbaaraadka ugu waaweynaa aflaamta indiga sida ay nabadgeliyo